كوبعي كراتكاغا كوبعي 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 كراتكاغا كوبعي كرات بهانو كوريو أيام هرمات كاربا قويها جري قربكاغا 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 قبو قربكاغا قبو كرات بهانو كوريو أيام هرمات كاربا قويها جري قربكاغا 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 قبو قربكاغا قبو كوبعي 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 قراتكاغا كوبعي كراتكاغا كوبعي asalaamu calaykum kulanti wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka kobci garaadkaaga oo hadahan oo kale aad ka daawataan shaashada telefishinka qaranka sidoo kalena aad kala socotaan radio Hargeysa barnaamijka kobci garaadkaaga oo bisha barakeysan ee Ramadaan si toos ah uga socda telefishinka qaranka Soomaaliland 10 iyo barka habeenimo aynu hawada ku kulano barnaamijka intaynu hawada ku guda jirno waxa dadweynuhu ay kaga qayb gali karaan barnaamijka lambarka 52 eber hal laba aan idhaahdo lambarkaasi ayaad goob kastoo aad joogtaan naga soo qaraaci kartaan dadweynaha stuudiyaha igula sugan ayaa inta dambe ee barnaamijkan iyagu ku tartami doona shakhsiyaadka nasiibka u hela in habeenkani ay soo fadhiistaan kursiga lagu tartamayo su'aalahana halkaasi aanu ku weydiino barnaamijka waxaanu geli doonaa xayeysiiska shirkadda isgaarsiinta Telesom oo qayb ka ah barnaamijkani kobci garaadkaaga watahay daawadayaal intaas aynu kaga nimaadno qadarkaasi xayeysiiska ah ee barnaamijka kobci garaadkaaga khadka telefoonada ayaynu si toos ah u geli doonaa 52 eber 122 ayaad naga soo qaraaci kartaan meel kastoo aad joogtana telefoonka isku day inaad kaga qayb qaadato assalaamu calaykum assalaamu calaykum ku soo dhaw barnaamijka kobci garaadkaaga عليكم السلام ku soo dhaw barnaamijka kobci garaadkaaga يا ولد ku soo dhaw barnaamijka مرحبا وكل ولد magacaago saddexan iyo halkaad ka soo hadlayso مقعي وقفت waa عبد الرزاق xagaad ka soo hadlaysaa cabdirasaaq oo may maqashaa قبلي waa tahay haddaba haddaad telefoonka khadkaad igula hadlayso si aynu si toosa isku maqalno
raadiyowga iska naaqus haddaad telefishan ka daawanaysana iska naaqus labadaba si aynu inagoo keliya isku maqalno su-aalaha barnaamijka kubci garaadkaagana aad halkan uga wada jawaabtid diyaar ma u tahay barnaamijka inaad qayb ka noqotid oo su-aashaada koobaad ee barnaamijka aan kuu bilaabo okay diyaar baa tahay soo maaha haa diyaar baan ahay waa tahay su-aashaada koobaad baan kuu bilaabayaa su-aashaada koobaad waxay ka oranaysaa ciyaarta la yidhaahdo wilwile waxa ay leedahay laba weji oo kale ah ciyaarta wilwiladu waxa ay leedahay laba weji oo kale ah e dood iyo dirir b ciyaar iyo caweyn c ciyaar iyo dhoolatus deg deg ah waxay leedahay oo c ah ciyaar iyo dhoolatus dagaal ciyaarta la yidhaahdo wilwile waxa ay leedahay laba weji oo kale ah doorashadaada koobaad oo eya waa dood iyo dirir doorashadaada labaad oo biyana waa ciyaar iyo caweyn doorashadaada saddexaad oo siyana waa ciyaar iyo dhoolatus dagaal maxaan kuu goobaabaa b oo ciyaar iyo caweynah su-aasha jawaabtaasi b baynu wada eegi doonaa sidaasi ayay khalad ku tahay waan ka xumahay ciyaartaasi wilwilada oo su-aashaada koobaad ee barnaamijka noqotay waxaan eegi doonaa tartamahaasi ku xigay habeenkani caawa khadka telefoonku nasiib u yeeshay inuu usoo galo halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum السلام عليكم calaykum asalaam kusoo dhowow barnaamijka kobci garaadkaaga برنامج كذا kusoo dhowow barnaamijka kobci garaadkaaga وان كسو دواي magacaago saddexan iyo halkaad igala soo hadlayso يا ناقصو يا والله magacaago saddexan iyo halkaad ka soo hadlaysid يا ناقص نجيتو الو ayaan iska naaqus horta aynu si aynu toos isku maqalno يا والله ma iska naaqustay ها si toosaad ii maqashaa soo maha ها waa tahay waxaad ii sheegtaa magacaago saddexan iyo goobtaad igala soo hadlayso حسين ابراهيم عبد الله halkaad igala soo hadlaysaa على حسبك xusbiga ها waxaabay ahayd inaad barnaamijka timaado laakiin hadday kuu suurto gashaba inaad telefoonka igala soo hadasho barnaamijka kobci garaadkaaga intaynu ku wada jirno 5 su-aalood baan ku weydiin doonaa hal marna waxaa ku caawin doona dadweynaha diyaar ma u tahay su-aashaada koobaad ها وانا هاي والله diyaar baa tahay soo maaha ها waxaan kuu bilaabi doonaa su-aashaada koobaad والله ما يسقط su-aashaada koobaad baan kuu bilaabayaa ها waan ka xumahay isagoon su-aashiisii koobaad gaadhin ayaa khadkaasi telefoonka uu ka go-ay laakiin waynu kasoo gudbi doonaa dadweyne badan baa ku jira khadka telefoonka sugayana intaasi inuu maru nasiib u yeesho inuu usoo galo tartamaha xigaan eegi doonaa halo asalaamu calaykum عليكم kusoo dhowow barnaamijka kobci garaadkaaga عليكم السلام ورحمة الله وبركاته kusoo dhowow barnaamijka kobci garaadkaaga وان كدوي والله haddaad dhegaysanaysana iska naaqus idaacadda haddaad daawanaysana telefishanka iska naaqus هاي وان ناقصي وان صفة عمكم مقلي si fiican may maqashaa ها waa tahay magacaago saddexan iyo halkaad igala soo hadlaysid مولد عبد جامع يبص xaggeed ka soo hadlaysaa mawlido بص بقى bus baad igala soo hadlaysaa waa tahay barnaamijka intaynu ku guda jirno 5 su-aalood baan ku weydiin doonaa hal marna waxa ku caawin doona ambaba su-aal kaa caawin doona dadweynaha igula sugan stuudiyaha barnaamijka su-aashaada koobaad diyaar ma u tahay inaan kuu bilaabo ها diyaar baa tahay اه su-aashaada koobaad waxay ka oranaysaa afarta goodirka ah ee meel wada daaqaysa waxa la yidhaahdaa afarta goodirka ah ee meel wada daaqaysa waxa la yidhaahdaa e afarey b iyo habgaab c neehi afarta goodirka ah ee meel wada daaqaysa waxa la yidhaahdaa e waxay ka oranaysaa afarey b waxay ka oranaysaa yahaabgaab bay ka oranaysaa doorashadaada labaad doorashada saddexaad oo siyana waxay ka oranaysaa neehi baa la yidhaahdaa dadweynahan u dhiibaa dadweynahan usoo gudbi doonaa su-aashii koobaad inaad ka caawisaan inankaasi waxaad oranaysaa su-aasha afarta goodirka ah ee meel wada daaqaya waxa la yidhaahdaa imise qof baa leh waa e oo afaraya hal qof
saddex qof baa gacanta taagay 5 qof bay noqdeen halkaasi imise qof baa le waa b oo yahabgaaba 9 qof baa halkaana gacanta kuu taagay imise qof baa leh waa c oo nehiya halkaana 5 qof baa taagay b waa 9 qof a iyo c na min 5 qof baa taagay waa tiro isku dhow baan filaya ya halka sagaalkan ku raacna oo b ah ha su-aasha jawaabtaasi b ayaynu wada eegi doonaa oo dadweynuhu u dooreen sidaasi ayay sax ku tahay su-aashaada koobaad ee barnaamijka hambalya baan ku leenahay waad ku guulaysatay oo su-aashii koobaad waad garatay su-aalaha ku xiga oo 4 su-aalood ay ah inaad adigu ka jawaabtid ayaynu gudageli doonaa su-aasha labaad diyaar ma u tahay ha waynu sii soconaynaa su-aashaada labaad ee barnaamijka kobci garaadkaaga habeenkani caawa ah aada nasiibka u yeelato su-aalaha adiga kuu soo baxaya waynu wada eegi doonaa su-aashii koobaad ee barnaamijka waxaa tahay qofkii koobaad ee si toosa ilaa hadda khadka ugu jira iyadoo qof ka hor uu ku kacay su-aashii koobaad qof kalena uu ka go-ay khadka telefoonka waxay ku oranaysaa su-aashaada labaad ha dad nooleeya duur qalinlow doc wanaaje dah walaalkiiyow dad nooleeye duur qalinlow doc wanaaje dah walaalkiiyow heestani waa e waxaa loogu heesaa kebadda b aloolka c haanta dad nooleeya duur qalinlow doc wanaaje dah walaalkiiyow dab nooleeye duur qalinlow doc wanaaje dah walaalkiiyow heestani waxaa loogu heesaa doorashada koobaad oo eya waa kebadda doorashada labaad oo biyana waa aloolka doorashada saddexaad oo siyana waa haanta waxa weeyaan bida oo aloolka ha su-aasha jawaabtaasi sidaasi ayay sax ku tahay hambalyo baan ku leenahay su-aashaadii labaad ee barnaamijka sidaasi ayaad ku garatay ay saxna kuugu tahay waxaan eegi doonaa su-aasha saddexaad ee barnaamijka kuu soo baxdo soo diyaar ma tiid ha ereyga lur waxaa la macno noqonaya ereyga lur waxaa la macno noqonaya e dheef b dhib c hanti ereyga lur waxaa la macno noqonaya doorashada koobaad oo eya waa dheef doorashada labaad oo biyana waa dhib doorashada saddexaad oo siyana waa hanti lur baa lagaa doonayaa ereygaasi ereyga la dhigma ee saddexda doorasho ku jira ma dheefbaa ma dhibba ma hantiba waxa weeye waa dhib lur waa dhib su-aasha jawaabtaasi b baan eegi doona sidaasi ayay sax ku tahay hambalyo baan ku leeyahay su-aashaadii saddexaad ee barnaamijka ee bartanka u ahayd su-aalaha barnaamijka waad ka gudubtay su-aashaada afraad baynu u gudbi doonaa ma intaasaad ku joojinaysaa mise waan sii soconnaa maya halkaasaan ku joojinaya halkaasaad kaga baxaysaa waa tahay su-aashii saddexaad ee barnaamijka ayaad kaga baxday dadweynaha kaa dambeeyana wakti baad siisay aad baanad ugu mahadsan tahay saddexda su-aalood ee barnaamijka aad ku guulaysatay waxaan eegi doonaa tartamaha ku xiga ee khadka telefoonka ayaynu weli ku guda jirnaa meel kastoo aad joogtaan 5 eber 1 ayaad naga soo qaraaci kartaan khadkuna idinku idii furan yahay in badan hays odhanina mashquulka uu ku jiro telefoonka lama qabanayo balse qof kale ayaa khadka ku jiro kaa horeeyay noqonaysaa micnaheedu laakiin nasiibkaaga tijaabi oo ka qayb qaado barnaamijka kobci garaadkaaga waxaan eegi doonaa tartamahaasi ku xiga habeenkani caawa ah nasiibka u yeesha in telefoonkiisu soo galo telefoonka barnaamijka kobci garaadkaaga barnaamijka waxaa iska kaashaday telefishinka qaranka iyo sidoo kale shirkadda isgaadhsiinta telesom oo barnaamijkani dadweynaha ku xidhan iyagu wax ku celinaya waxaan eegi doonaa tartamahaasi isagoo barnaamijka ilaa hadda qofkan hallo asalaamu calaykum kusoo dhawo barnaamijka kobci garaadkaaga magacaaga iyo halkaad igala soo hadlayso magacaygu waa khadar xasan waxaa kala soo hadlayaa degmada axmed dhagax gaar ahaan sinay degmada axmed dhagax waa tahay barnaamijkaynu gudageli doonaa intaynu hawada ku wada jirno waxaan ku weydiin doonaa 5 su-aalood
hal marna amaba su-aal ka mid a 5 su-aalood waxaa ku caawin doona dadweynaha stuudiyaha igula sugan barnaamijka inaynu bilaabano su-aashooda koobaad ku weydiiyo diyaar ma u tahay ها ديار ما هو ديار diyaar ba u tahay soo maaha waxay ku oranaysaa su-aashaada koobaad imisadii ayuu dhashay cabdimaalik binu marwaan imisadii ayuu dhashay cabdimaalik binu marwaan su-aashaada koobaad waxay ku oranaysaa imisadii ayuu dhashay cabdilmaalik binu marwaan e waa sanadkii 24aad b waa sanadkii 12aad c waa sanadkii 18aad cabdimaalik binu marwaan sanadku dhashay baa lagaga baahan yahay doorashada koobaad waa sanadkii 24aad doorashada labaadna waa sanadkii 12aad sanadkii 18aad baa c ah maxaan kuu goobaabaa waaye waxaan jeclay inaynu dhigano dadweynaha su-aasha koobaad cabdimaalik binu marwaan dhalashadiisa sanadka uu dhashay dadweynaha ayaan weydiin doonaa inta qof ee leh su-aashaasi waa e oo waa sanadkii 24aad buu dhashay laba qof baa halkaasi gacanta kuu taagay imise qof baa le waa b oo sanadkii 12aada hal qof baana halkaasi gacanta kuu taagay imise qof baa le waa c oo wuxuu dhashay sanadkii 18aad halkaasina 6 qof baa gacanta kuu taagay oo c baa ugu badan baan odhan karaa inta qof su-aashaasi ka jawaabay amaba kuu dooray ma dadweynahaynu ku raacnaa waxaan jeclay inaan ku raacno dadweynaha lixdaa qof baynu ku raacnaa soo maha waa tahay 6daa qof baynu raaci doonaa sanadkii 18aad oo c ah sanadku dhashay cabdimaalik bin marwaan baynu eegi doonaa su-aasha jawaabtaasi sidaasi ayay khalad ku tahay waan ka xumahay su-aashaasi dadweynaha kuma ay sixin adiga laftarkaaguna iyagaad u dhiibatay waxaanu eegi doonaa tartamaha ku xiga ee barnaamijka kobci garaadkaaga khadka telefoonka ayaanu weli ku guda jirnaa halo asalaamu calaykum calaykum salaam kusoo dhawow barnaamijka kobci garaadkaaga ku dhawaay walaal barnaamijka magacaaga oo saddexan iyo halkaad igala soo hadlayso magacaygu waa cabdiwahaab axmed ibraahim cabdiwahaab xaggaad igala soo hadlaysaa degmada arabsiyo degmada arabsiyo waa tahay barnaamijka intaynu ku guda jirno 5 su-aalood baan ku weydiin doonaa hal marna dadweynaha igula sugan stuudiyaha ayaa su-aal kaa caawin doonaa diyaar ma u tahay su-aashaada koobaad ee barnaamijka waa tahay su-aasha koobaad ee barnaamijka habeenkani caawa ah aada nasiibka u yeelataynu eegi doonaa waxay ka hornaysaa su-aashaada sabuux soomaalidu waxay u taqaanaa bisha sabuux soomaalidu waxay u taqaanaa bisha sabuux soomaalidu waxay u taqaanaa e bisha 7aad b bisha 6aad c bisha 5aad sabuux soomaalidu waxay u taqaanaa bisha e 7aad b 6aad c 5aad su-aashaasi maxaan kuu goobaabaa su-aasha tashanaad bisha 5aad bay sabuux soomaalidu u taqaanaa oo c noqonaysa doorashada c ayaynu wada eegi doonaa uu goobaabay bisha sabuux inay soomaalidu u taqaano bisha 5aad su-aasha jawaabtaasi sidaasi ayay khalad ku tahay waan ka xumahay su-aashaasi kuma aad guulaysan manaanay suurtogelay inay noqoto su-aashii saxda ahayd ee barnaamijka hore kuusii wadi lahayd su-aasha amaba weli waxaynu ku jirnaa khadka telefoonada ayaynu eegi doonaa tartamahaasi ku xiga halo asalaamu calaykum may maqashaa kusoo dhawow barnaamijka kobci garaadkaaga codkaygu si fiican ma kuu soo gaadhaya kusoo dhawow barnaamijka kobci garaadkaaga telefoonkaaga kor u dallac si aan codkaaga u maqalno haddaad sbiikarka nagala hadlaysana iska demi koolkaasi muu suurtogelin oo inuu khadka telefoonka kusii jiro oo barnaamijka qeyb ka noqdo oo kusii socdo su-aalaha kala duwan ee barnaamijka kobci garaadkaaga ee dadweynaha khadka telefoonku ay kaga qeyb qaadanayaan iyagoo abaalmarino ku heli doona su-aal kasta oo ay gartaan
weli waxaynu eegi doonaa khadka telefoonada. hallo salaamu calaykum. waraxmatullahi wabarakaatu. ku soo dhowo barnaamijka kobci garaadkaaga. waan ku dhowahay walaalo. magacaago saddexan iyo halkaad igala soo hadlayso. sheekh maxamed yuusuf. deeqo halkaad Hargeysa kala saabay. magaalada Hargeysa. waa tahay deeqow, barnaamijka intaynu ku guda jirno waxaan ku weydiin doonaa 5 su'aalood, hal marna waxa ku caawin doona dadweynaha. diyaar ma u tahay su'aashaada koobaad ee barnaamijka? waan wahay walaalaha. waa tahay su'aashaada koobaad ee barnaamijkeenu wada eegi doonaa. waa si wanaagsan. Hello. su-aashaadu waxay ku oranaysaa labka garanuugta marka uu yar yahay waxaa loo yaqaanaa. labka garanuugta marka uu yar yahay waxaa loo yaqaanaa. labka garanuugta marka uu yar yahay waxaa loo yaqaanaa. a darow, b wadar, c warad. warad baa loo yaqaanaa bay sii ka oranaysaa. labka garanuugtu marka uu yar yahay waxaa loo yaqaanaa. a waa darow, b waa wadar, c na waa warad. su-aashaasi ma dadweynahan kuugu dhiibaa mise adiga goobaabi doonaa labka garanuugta markuu yar yahay waxaa loo yaqaano? dadweynahan usoo leexan doonaa. su-aashaasi aan inankaasi weydiiyey ayaynu doonaynaa inaad inaga caawisaan. labka garanuugta marka uu yar yahay waxaa loo yaqaano. imise qof baa le waa a oo darowa. hal qof baa halka dambe gacanta ka taagay. imise qof baa le waa b oo wadara. hal qof oo kalena b ayuu doortay. imise qof baa le waa c oo warada. dhammaan dadweynaha stuudiyaha igula sugan intoodii ugu badnayd ama aqlabiyadda aan qaatabe waxay doorteen c. ma ku raacna? haa walaal, dadweynaha taasaan ku raacnay. iyagaynu ku raacayna mar haddaynu walaayadda u dhiibnay iyaga aynu niri noo doora su-aasha ay xaqa u lahaayeen inay kaa caawiyaan. c baynu eegi doonaa labka garanuugta markuu yar yahay waxa loo yaqaano. su-aasha jawaabtaasi ayaynu wada eegaynaa. su-aasha jawaabtaasi sidaasi ayay sax ku tahay. hambalyo hambalyo ayaan ku leenahay adiga iyo dadweynaha su-aashaasi iyagu kala jawaabayba. su-aashaada labaad ee barnaamijka ma u sii soconnaa? hallo. waan sii soconnaa. sooma diyaar baa tahay? walaal mee halkaa igu soo aniga. waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. su-aashaasi koobaad ee barnaamijka aad garatay adiga iyo dadweynuhuba. kolley janiska amaba fursadda waxaad siisay dadweynaha kale ee barnaamijka iyagu qaybta ka noqon doona ee khadka telefoonka naga soo qaraacaya. tartamahaasi ku xiga ayaa kolley khadka telefoonada caawa ugu dambeyn doonaan filayaa. qofkaasi ayaa noqon doona qofka ugu dambeeya ee barnaamijka kobci garaadkaaga ka qayb gala. hallo salaamu calaykum. may maqashaa? ku soo dhowo barnaamijka kobci garaadkaaga. iska naaqus telefishinka aad iga daawanaysa amaba idaacadda. bal naaqus magacaago saddexan iyo halkaad igala soo hadlaysana ii sheeg. waxa weeye Hargeysa kala saabay Hargeysa. waaye naaqus haddaba ma daawanaysaa barnaamijka ma soo dhegeysanaysaa? waan idaacadda kala saabay idaacadda. haddaba recordka aayar taabo oo iska naaquseen isku maqalno. waay marxaba. waa tahay 5 su-aalood baan ku weydiin doonaa. hal jeerna waxaa ku caawin doonaa dadweynaha. diyaar ma u tahay? waxaad noqotay su-aashaada koobaad ee barnaamijka ayaynu gudageli doonaa. weli maad naaqusin baan filayaa. mar labaad baad isdhegeysanaysaa maadaama codkaagu iga halsaamayo. waxay ku oranaysaa su-aashaada koobaad dawliilka ereygani waxaa dhigiisa ah. dawliilka ereygani waxaa dhigiisa ah. a muuqaalka, b heshiiska, c hadalka. dawliilka ereygani waxaa dhigiisa ah. ereyga dawliil ayaan kaaga baahanay ereyga dhigiisa ah. a waxay ku oranaysaa muuqaalka, b na waxay ku oranaysaa heshiiska, c na waxay ku oranaysaa hadalka. maxaan kuu goobaaba? waa tahay dadweynahan u gudbi doonaa. ereyga dawliilka ayaanu idinka baahanay ereyga dhigiisa ah
imise qof baa leh ereygaasi dawliilka waxaa la dhigma ambaba la micno ah ereyga muuqaalka oo ee ah imise qof baa ee goobaabay 4 qof baan ku hayaa ee ah oo muuqaal yidhi imise qof baa leh waa b oo heshiiska ah 10 qof baa halkaasi iyaguna gacanta taagay heshiiska imise qof baa leh waa c oo hadalka 4 qofna waxay idhaahdeen waa hadalka inay qaar ku ceshadeen iyo in kalena aada uma hubee maxaynu yeelnaa ma b baynu ku raacnaa oo dadka ugu badana mise c iyo e baynu dooranaa ma ku raacaysaa dadweynaha waxaan ku raacaynaa 10 qof oo b toortay su-aasha jawaabtaasi sidaasi ayay khalad ku tahay aad baad u mahadsan tahay sidaad uga qayb gashay barnaamijka waxaynu geli doonaa qaybta dhextaalka barnaamijka u ah waxaan u yeeri doonaa agaasimaha telefishinka qaranka maxamed xasan cali weji oo barnaamijkeena qaybta dhexe mar kastaba aanu ku kala bedelno dadweynaha iyagu stuudiyaha nagula sugan iyo inta radio hargeysa amaba telefishinka ka daawanaya khadka telefoonka nagala soo xidhiidhaya waa qaybtii dhextaalka u ahayd barnaamijka kusoo dhowo agaasime barnaamijka kobci garaadkaaga eed qaybka ka tahay habeen walba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kastaba codkaygu idinka soo gaadhaya muuqaalkayga ka arkaysaana waa radio hargeysa ee telefishinka qaranka oo idin leh waanu heegan baanu nahay madadaalintiina maawelintiina iyo weliba barnaamijkan hadda rabadaantu socdaa ee ah inaad ku heshaan nasiibkiina barnaamijkan kobci garaadkaaga waxaa iska kaashadaa telefishinka qaranka radio hargeysa iyo shirkadda telesom oo iyadu lafdhabarta runtii ah aan aadna ugu mahadnaqayno haddaan hadba u gudagalo waxaa sugayaan raggoo dhan baa nasiibkooda sugaya maxamedowe iyo hablahanbeen haddaan gudagalo sheekada waxoogaa idinka dabcinaysa tenshanka ama degdegista nasiibkiina waxaa halku dhigeedayaa kaalay oo madaxa iga fur kaalay oo madaxa iga fur hudheeladeena danyarta kuwa dabaqada dhexe ayaa berigii hore dalka ku badnaan jiray waddan waliba dhaqan buu leeyahay innaga hudheeladaa la seexday kuwa hurdada ah 2 sariirood baa ooli jiray oo 2 qof seexan jireen haddii rag yihiin raggu labadaasay wada seexan jiray iyagoo isaqoon baa qof walba sariirtiisa kalaysan jiray marka habeen baa nin dhalinyarigii kalaystay maqsin sariir 2 sariirood yaaliin sariir buu kalaystay isagoo markaas sii seexanaya ayaa wuxuu maqlay suqduudkii maqsinadani ku yiileen sanqar ka soo baxaysa oo uu la yaabay jalam 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 buu soo maqlay oo sanqar aada u weyna dabeedna wuu soo sara fadhiistay say sanqadhii u soo baxaysay ayay maqsinkii uu ku jiray hortiisa sanqadhii istaagtay albaabkii baa soo furay ninkii baa soo galay ninku waa nin weyn macaawis buu xidhan yahay yubakoolad wuu sitaa madaxana waxbuu ku xidhan yahay cimaamadiyo koofiyadiyo shaadh ninkii waa nin dhacadcad muu salaaminay intuu sariirtii kala fadhiistay ayuu sidaa waagay dabeedna macaawistiibuu kor isaga qaaday lug buu iska furay lug soo wixii sanqadhaya lug bayd naafku ahaa lugtiibuu iska furay halkan uu dhigay inankii wuu eegayaa dabeedna macaawistiibuu sii daystay shaarkiibuu iska furay galan baa u hadhay gacan ayuu iyana ku daray geesta kale ah oo furo halkan dhigay inankii dabeed indhuhu soo cadeeyey wuu yaabay cimaamadii iyo koofiyadii buu iska dhigo il footariyu soo saaro iyana halkanuu dhiga ilkiibuu kuwii hoosiyo kuwii saraba saaray oo iyana halkan ku riday weel yarkiiba markaa inuu carabo ku dhow ayuu kaalay asuhaada kaalay madaxa iga fur madaxa orod buu albaabkii goostay macashandadiisa ka cararay kaalay oo madaxa iga fur waxaad leeyahay nasiibkiina barnaamijkiina iyo caawa iyo anoona inta joogtaa gambaha kaga jigeen lacagta way ka nasiibkiina watahay aad baad mahadsan tahay aad buu mahadsan yahay agaasimaha telefishinka qaranka maxamed xasan cali oo isagu barnaamijka qayb muhiima habeen kasta ka ah oo barnaamijkani qaybta lagu madadaaloodo isagu barnaamijka qaybta ka waxaan u gudbi doonaa dadweynaha stuudiyaha igula sugan inta habeenkani caawa ah nasiibka u hela inay caawa ka qayb qaataan waxaan u yeeri doonaa barnaamijka lambarka koobaad baan u yeeri doonaa qofka sita lambar 1
kusoo dhawow barnaamijka kobci garaadkaaga mikrofoonka qaado afkana u dhawee codkaagana ay maqashii magacaago saddexan magacayga waa Nuur Cabdi weli u yaro dhawow dadweynaha ku daawanaya kuwa ku dhegaysanaya bas ay ku maqlaan waa Nuur Cabdi iidow barnaamijka hore ma uga qayb gashay may caawa kuga horeysa away goorsa waa tahay iidow haddaba intaynu hawada ku wada jirno waxaan ku weydiinayaa 5 su'aalood ee dadka telefoonada baan doonayay inaan weydiiyo walow aanay jirin cid dhamaysay caawa hal jeerna sida qaybta ka hayd uga caawinaysa dadweynaha hore caawana adiga inta kale hadhay baa ku caawin doonta diyaar ma u tahay su-aashaada koobaad ee barnaamijka inaynu bilaabano aynu hore ka sii galno diyaar baa tahay waa tahay su-aashaada koobaad baynu wada eegaynaa sheeg mid ka mid ah magacyada suuradda naasicaad sheeg mid ka mid ah magacyada suuradda naasicaad waxay ka oranaysaa waajifa b daariqa c daama sheeg mid ka mid ah magacyada suuradda naasicaad waxay ka oranaysaa waajifa b daariqa c daama suuradda naasicaad magacyadeeda mid ka mid ah ayaa 3dan doorasho ku guda jira marka waxaan kaaga baahanahay tay noqonayso ta ku saxda ah ee siday adiga kula tahay dadweynahana wada haysataa dadweynahan u dhiibnaa waxaa idinka baahannahay suuradda naasicaad magaca kale ee loo yaqaano ee ku jira 3dan doorasho imise qof baa le waa oo waajifa ah ila tirso 5 qof baa yidhi imise qof baa le waa b oo daariqa ah hal qof baa gacanta taagay imise qof baa le waa c oo daama ah iska soo daba dhaceen 7 c bay dadweynaha ku badan dooreen maxaa yeela waan ku raacnaa soo maa su-aasha jawaabtaasi c baynu wada eegaynaa su-aasha jawaabtaasi waxa ay noqoto sidaasi ayay sax ku tahay hambalyo baan ku leenahay su-aashaadii koobaad ee barnaamijka waad ku guulaysatay kor baynu uga soconaynaa soo maha 4 ku hadhay iyo adiga soo maha waa tahay barnaamijka meel kastoo aad joogto waad kaga bixi kartaa ta koobaad ta labaad ta saddexaad lacagtaadana waad yeelanaysaa waxaa ka oranaysaa su-aashaada labaad sheeg mid ka mid ah suuradda loogu magac daray cayayaanka sheeg mid ka mid ah suuradaha loogu magac daray cayayaanka suuratul baqra lo-da b suuratul cankabuud caarada c suuratul maa-ida xeedha maxaa ku xiga talow suuratul maa-ida oo c ah baynu eegi doonaa waxa ay tahay xeedha ayaa ku qoran xeedhada ayay noqonaysaa inta dambe ay naga maqan qoraalkeeda sheeg mid ka mid ah suuradaha loogu magac daray cayayaanka suuratul baqra oo lo-da ah suuratul cankabuud oo caarada ah c suuratul maa-ida oo xeedhada ah caarada su-aasha jawaabtaasi b ayaynu eegi doonaa oo ku kalsoonta soo maha sidaasi ayay sax ku tahay hambalyo baan ku leeyahay su-aashaadii koobaad ee barnaamijka iyo tii labaadba waad u gudubtayba waad ku guulaysatay ma sii socnaa intaasa kaga kacaysaa waa tahay aad baad u mahadsan tahay kolley dadweynaha kale ee stuudiyaha kugula sugan unbaad jaaniska siisay waxaan u yeedhi doonaa lambarka 21aad cidda sidinta ha soo kacdo lambarkaasi 21aad barnaamijka kobci garaadkaaga ayaad nagala socotaan telefishanka iyo raadiogana waad naga dhegaysanaysaan kusoo dhawow barnaamijka kobci garaadkaaga mikrofoonkana afka u dhawee magacaagoo saddexanna ii sheeg magacaago saddexan asma axmed cali asmaa hore barnaamijka ma uga qayb gashay may laakiin waan daawada waa daawatay waa tahay 5 su'aalood baan ku weydiin doonaa hal jeerna dadweynaha ku caawin doonaa su-aashaada koobaad ee barnaamijka diyaar ma tahay diyaar baa tahay waa tahay marka ciyaaraha dhaqanka dhalinyaradu ciyaarayso qofka sacabka xumeeya waxaa la yidhaahdaa marka ciyaaraha dhaqanka dhalinyaradu ciyaarayso
qofka sacabka xumeeya waxaa la yidhaahdaa dhabqis, b dhameeye, c dhoqosh. marka ciyaaraha dhaqanka dhalinyaradu ciyaarayso qofka sacabka xumeeya waxaa la yidhaahdaa dhabqis, b dhameeye, c dhoqosh. su-aasha dadweynaha u dhiibanaya dadweynaha u dhiibanaa ciyaar dhaqameedka marka la ciyaarayo jaanta iyo jiibta la isla helo qofka sacabka xumeeya waxaa la yidhaahdo ayaa laydinka doonaya mise qof baa le waa oo dhabqisa. malaha uma baahnaba inaan sii soconno dhammaan way wada taageen halkaasaynu kaga harnaa c iyo b baa labadoodaba ma ku raacnaa haa ku raacayna su-aasha jawaabtaasi dhabqis baynu eegi doonaa ambaba dhabqiya sidaasi ayay sax ku tahay. hambalyo hambalyo. eeg markaad wada garateen aad baa sacabka u tunteen markaad kala hadhaana waxaa noqonaysaa in shantii qofee garatay inay sacabka tunto mar kasta sidaa sacabka u tuma aad u wada garateen dhammaantiin. waa tahay su-aasha labaad ee barnaamijka waan sii soconnaa way sii soconnaa soo maha. su-aashaada labaad ee barnaamijka kobci garaadkaaga habeenkani caawa ah maadaamaad tahay qofkii labaad tahayna inantii koobaad ee barnaamijka ka qayb gasha. su-aasha labaad ee barnaamijka ayaan kuu eegi doonaa nasiibkaagu wuxuu ku siiyo iyagoo su-aalaha diiniga dhaqanka iyo sidoo kale cilmiga bulshada amaba culumta kala duwan ee soomaali ahaan aynu leenahay iyo saynis iyo aqoon ahaanba ay barnaamijkani qeyb ka yihiin. annagoo barnaamijkana ugu talagalnay laba faa'iidaba inay dadweynuhu ka qaataan. su-aal ahaan bisha barakaysan hadday noqoto ay uga faa'iidaystaan. su-aashaadii kale way soo baxday anoo faa'iidada labaad ee barnaamijkaba sheegin. waxay ka oranaysaa ma wax kalaa la fuulaayo fadhi lagu kareeyaa. waa heesta ma wax kalaa la fuulaayo fadhi lagu kareeyaa. wax kaloo la fuulo fadhi lagu kareeyaaba markaa ma jiro. waa riyaha, b waa awrta, c waa dameeraha. ma wax kalaa la fuulaayo fadhi lagu kareeyaa. waa heesta riyaha oo doorashada koobaada, waa heesta awrta oo b ah, waa c waa dameeraha. ma wax kalaa la fuulaayo fadhi lagu kareeyaa. fahamka su-aashu waxay ka mid tahay garashada jawaabta. ma wax kalaa la fuulaayo fadhi lagu kareeyaa. waa heesta riyaha, awrta iyo dameeraha. c oo dameeraha ah. ma wax kalaa la fuulaayo fadhi lagu kareeyaa. waxaan eegi doonaa inay tahay c oo dameeraha ah. su-aasha jawaabtaasi sidaasay khalad ku tahay. aad baad u mahadsan tahay sidaad uga qayb gashay barnaamijka. waxaan u yeedhi doonaa tartamahaasi ku xiga oo barnaamijka si uu qayb ugu noqdo. waxaan u yeedhayaa lambarka labaad. lambar laba qofka sitaa ha soo kaco. ku soo dhawow barnaamijka kobci garaadkaaga. magacaago saddexaadna ii sheeg. axmed nuur cabdilaahi. mikrofoonka axmed nuur oo u dhowee si dadweynaha kuwa ku daawanaya kuwa ku dhegaysanayaaba ay jawaabtaadu maqlaan. waa dhowday soo maha. barnaamijka intaan axmed oo ku guda jirno 5 su-aalood baan ku weydiin doonaa. hal jeer dadweynaha ku caawin, 4 jeerna adiga ka jawaabay. su-aashaada koobaad ee barnaamijka ayaynu eegaynaa. qalabka fardaha lagu fuulo ee dusha laga saaro waxaa la yidhaahdaa. qalabka fardaha lagu fuulo ee dusha laga saaro waxaa la yidhaahdaa. meeraar, b abjad, c kore. qalabka fardaha lagu fuulo ee dusha laga saaro waxaa la yidhaahdaa. doorashadaada koobaad waa waa meeraar, b waa abjad, c na waa kore. kooraha. su-aasha jawaabtaasi c baynu eegi doona. sidaasi ayay sax ku tahay. hambalyo hambalyo hambalyo. su-aashaadii koobaada barnaamijka waa saxday. 4 su-aalood ayaa kaaga hadhay dhammaadkii barnaamijka. 5 su-aalood oo keliya weeyaan. weli halkii jeera dadweynuhuna uu ku harhsan yahay. su-aashaada labaad ee barnaamijka diyaar moota inaan sii soconno. diyaar baad u tahay soo maha. waana rajeynaya inaad noqoto qofkii koobaad caawa su-aalaha wada dhammaystira 5taba garta ee xaggan ka taga. waa tahay su-aasha labaad ee barnaamijka kobci garaadkaaga aada nasiibka u yeelato habeenkani caawa inay noqonayso dhaqan, inay noqonayso diini, inay noqonayso cilmiga guud ee soomaalida
oo dhaqanku qeyb ka mid uu yahay iyo ereyada afka soomaaliga oo isaga laftirkiisu barnaamijka uu dadka barayo ayaan eegi doonaa su-aashaadaasi labaad waxa ay noqoto su-aasha saddexaad iyo afraad iyo shanaadna waynu wada sugi doonaa halkaa ay nala marto habeenkani caawa waxaynu eegaynaa barnaamijka kobci garaadkaaga idinkoo raadiyo hargeysa iyo telefishinka qarankaba si toosa hadda ugala socdo oo barnaamijkana uu layf yahay aanu ku wada sugannahayna aaminta aadna daawanaysaan stuudiyaha anigii axmed oo ishor fadhina meel kastoo aad joogtaana barnaamijka kasoo qayb gala inta ka hadhay bisha barakaysan ee rabadaan su-aashaada labaad ee barnaamijka 20 jir wixii kugu raacay 20 jir wixii kugu raacay e 30 jirka ama hadho b 60 jirka ama hadho c 50 jirka ama hadho 60 jir 20 jir wixii kugu raacay 60 jirkaaga ma hadho su-aasha jawaabtaasi b ayaynu wada eegaynaa sidaasi ayay sax ku tahay hambalyo waan ku leeyahay su-aashaadii labaad ee barnaamijka tii saddexaadna daawaha ayay kuu saaran tahay 20 jir wixii tii saddexaad baabayna soo gaadhay inagoo su-aashaasi ku noqon qandood ereygan dhigiisu waxa uu noqonayaa qandood ereygan dhigiisu waxa uu noqonayaa e xoodan b qalooc c foorar qandood qalooc mikrofoonka afka u dhawee bida su-aasha jawaabtaasi b ayaynu eegi doono ereyga qandooda sidaasi ayuu khalad ku yahay aad baad u mahadsan tahay sidaad axmed nuur oo barnaamijka aad nagala soo qayb gashay waad ku mahadsan tahay waxaanu eegi doonaa tartamahaasi ku xiga waxaanu yeedhayaa lambarka 30aad qofka sitaa ha soo kaco magacaago saddexan cabdinajax kusoo dhowo barnaamijka kobci garaadkaaga waxaynu gudageli doonaa barnaamijka 5 su-aalood aan ku weydiin doona hal jeer dadweynaha ku caawinaya diyaar ma u tahay su-aashaada koowaad diyaar baad soo maha inay su-aasha koowaad maxaad rajaynaysaa caawa guul inaad kaga tagto ood noqoto qofkii koowaad ee lacagta goobtani ka qaata waa tahay su-aasha koowaad intay kuu soo baxayso ma arday baa tahay cabdinajaxow magacyada waranka waxa kale oo ka mid ah magacyada waranka waxa kale oo ka mid ah e sulub b sawaari c seef magacyada waranka waxaa ka mid ah e sulub b sawaari c seef ma sulubba ma sawaariba ma seefba waran wayn wada garanaynaa magaciisa labaad amba magac kaluu leeyahay c oo seef ah waranku inuu seef noqonayo su-aasha jawaabtaasi c ayaynu wada eegi doona sidaasi ayay khalad ku tahay aad baad u mahadsan tahay cabdinajax tartamaha ku xiga ayaynu xaggoose iska dhig tartamahaasi ku xiga ayaan u yeeri doonaa lambarka afraad ha soo kaco lambar 4 qofka sitaa lambar 4 qofka sidaa ha soo kaco kusoo dhawow barnaamijka kobci garaadkaaga magacaaga oo saddexana ii sheeg waan ku dhawahay magacayga waa idman faysal ismaaciil idman barnaamijka intaynu ku guda jirno 5 su-aalood baan ku weydiinayaa hal jeerna dadweynaha ku caawinaya diyaar ma u tahay su-aashaada koobaad ee barnaamijka kobci garaadkaaga diyaar baa tahay su-aasha koobaad baan ku weydiin doonaa ma ardayeed baa tahay waa tahay iskuulka dhigataa abu hureyra waa tahay su-aasha koobaad ee barnaamijka habeenkani caawa ah aada nasiibka u yeelato ee kuu soo baxda su-aalaha barnaamijka kobci garaadkaaga ayaynu wada eegi doonaa ka dhuursugi doonaa qaybta ay noqoto amaba cilmiga iyadoo oon la wada dhammayn qof kastaba uu inuu ka dhigto laakiin nasiibka ayaa lagu kala duwan yahay oo qof kastaba nasiibkiisa oo saacida ayaa keentay inuu 5 su-aalood uu dhammaystiro walow su-aalahanu halkani kusoo diyaarina ay dhammaantood aanu ugu talagalay in dadweynuhu ay ka wada jawaabi karaan oo su-aalo jilicsan ay noqdaan qof ilduufa amaba qof aan hore u arag su-aashaasi mooyaane laakiin inta badan ee bulshadu laga yaabaa in badan oo barnaamijka daawanaysa su-aal kastaba ay isleeyihiin maad noqotid qofka halkaa jooga oo isagu su-aalahaasi karta su-aashaada koobaad ee barnaamijka ayaan ku akhrin doonaa
atoorka sakaarada waxa lagu yaqaanaa atoorka sakaarada waxa lagu yaqaanaa a dhowr yar b shaash badan c geeso yaryar atoorka sakaarada waxa lagu yaqaano ma eeba oo dhowr yar buu leeyahay ma biiba shaash badan buu leeyahay ma siiba ma geeso yaryar buu leeyahay atoorka dadweynuhuna way ku harsan yihiin dadweynaha atoorka sakaarada ayaan idinka baahannahay inaad naga caawisaan waxa lagu garto isaga imise qof baa le waa e oo dhowr yar buu leeyahay hal inan baa gacanta taagay inan kale uu ka daba yimid imise qof baa leh waa b oo shaash badan buu leeyahay atoorku imise qof baa leh waa c oo waxa uu leeyahay geeso yaryar intii hore way iska ciyaarayeen bay yidhaahdeen dhammaan dadweynihii gacantay taageen maxaan yaallaa ma ku raacna c oo geesaha yaryara haawan ku raaci atoorka sakaaradu inuu geeso yaryar leeyahay su-aasha jawaabtaasi sidaasi ayay sax ku tahay hambalyo baan ku leeyahay su-aashaadii koobaad ee barnaamijka waad garatay dadweynuhuna sidii saxda ahayd bay kaaga caawiyeen su-aasha labaad ee barnaamijka ma u sii soconaa waynu soconaa soo maha diyaar baanahay sakaaro atoorka yar weli hore umaad arag mise sakaaro waa ku wada sakaaroon mikrofoonka afka u dhaweeyo waa isugu kaa mid baahan laakiin caawa ku kala socnaan doonaan haddaad geesa aragto waa atoor buu noqonaya haddii kalena wuxuu noqonayaa soo maha su-aashaada labaad ee barnaamijka kobci garaadkaaga ee habeenkani caawa ah inta ku daawanayso in badan oo garanaysayna dabcan waxay islahaayeen si ha loo dooro in badan oo garanayna caawa waxay u noqon doontaa faa'iido su-aashaasi inay ka faa'iidaystaan waa intaa sakaarada maqashay ee aan kala arag dhadig iyo lab waxay kala yihiin su-aasha kale ee barnaamijka kobci garaadkaaga waxaad naga daawanaysaan telefishinka qaranka waxaad naga dhegaysanaysaan radio hargeysa sidoo kalena waxaa qeyb muhiim ah amba door muhiima ka ciyaartay barnaamijkani kobci garaadkaaga inaanu bulshada sanadkii labaad oo xidhiidha aanu halkan uga soo dayno shirkadda isgaarsiinta ee telesom halkee ayuu ku dhashay imaam abu xaniifa halkee ayuu ku dhashay imaam abu xaniifa e maka b madiina c kuufa imaam abu xaniifa magaaladii uu ku dhashay ayaa lagaaga baahan yahay ma e makaba ma b madiinaba c ma kuufa sida kuufa abu xaniifa uu ku dhashay su-aasha jawaabtaasi sii bayna eegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay hambalyo su-aashaadii labaad ee barnaamijkana waad ka gudubtay su-aashaada saddexaad ee barnaamijka ma u soconaa waan sii soconaynaa waa tahay kalsooni badan baa kaa muuqataa su-aashaadii saddexaad baynu ku jirnaa sheeg mid ka mid a magacyada suuradda tawba sheeg mid ka mid a magacyada suuradda tawba e saakha b daariba c kaashifa sheeg mid ka mid ah magacyada suuradda tawba e waxay ka oranaysaa waa saakha b waxay ka oranaysaa waa daariba c na waxay ka oranaysaa waa kaashifa sida siyo kaashifa su-aasha jawaabtaasi sidaasi ayay sax ku tahay hambalyo su-aashaadii saddexaad ee barnaamijka oo ahayd kaabada laga dhaco amaba laga sii socdo waad ka gudubtay su-aashaasi wixii ka dambeeya lacagtaada qayb ayaad heli doontaa su-aashaadii afraad ee barnaamijka ayaynu u gudbaynaa waxaa ka horeysa su-aashaada afraad shabaabnimadu waxay tahay shay nolosha aadmiga mar qudhun ku shaacbaxa waxa weeyaan shabaabnimadu waxay tahay shay nolosha aadmiga mar qudhun ku shaacbaxa shabaabnimadu waxay tahay shay nolosha aadmiga mar qudhun ku shaacbaxa waxa weeyi ee shabaabnimadu ma duqowdo b shabaabnimadu waa mar keliya c waxaan u malaynayaa inay tahay shabaabnimadu ma dhammaato cna shabaabnimadu ma dhammaato haa shabaabnimadu waxay tahay shay nolosha aadmiga mar qudhuun ku shaacbaxa
waxaa weeyaan amaba looga jeedaa shabaabnimadu ma duugowdo, shabaabnimadu waa mar keliya, shabaabnimadu ma dhammaato. bida shabaabnimadu waa mar keliya. su-aasha jawaabtaasi b baan eegaynaa, sidaasi ayay sax ku tahay. hambalyo baan ku leeyahay. su-aashaadii afraad, su-aashaadii shanaad baynu gudubnay. mayn sii soconnaa? haa sheeg suuradda lagu sheegay xadka iyo ciqaabta been abuurka. sheeg suuradda lagu sheegay xadka iyo ciqaabta been abuurka. sheeg suuradda lagu sheegay xadka iyo ciqaabta been abuurka. waa su-aashaadii ugu dambeysay, waa meel muhiima ayaad maraysaa. suuratu nuur ayay ka oranaysaa e. suuratu nisaa ayay ka oranaysaa doorashada b. suuratu ljaadiya ayay ka oranaysaa cna. sheeg suuradda lagu sheegay xadka iyo ciqaabta been abuurka. sheeg suuradda lagu sheegay xadka iyo ciqaabta been abuurka. ee waxay ku leedahay waa suuratu nuur, b-na waxay ku leedahay waa suuratu nisaa, c-na waxay ku leedahay waa suuratu ljaadiya eeda oo suuratu nuura. su-aasha jawaabtaasi sidaasi ayay sax ku tahay. hambalyo 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 hambalyo. shanta su-aalood ee barnaamijkaba aad ku guulaysatay. abaalmarina waxaad u helaysaa lacag aan ugu talagalnay barnaamijka qofkii dhammeeya inuu lacagtaasi guud ahaan uu wada qaato, isagoo inantaasi ay noqotay caawa qofkii koobaad ee barnaamijka dhammaysay. waxaan eegi doonaa shakhsiga noqon doona, amaba aynu eegi doonaa inuu noqdo qofka isagu barnaamijka ugu dambeeya amaba qof ka dambeyn doona, maadaama wakhtigu nagu yariyay. lambarka 14 baan u yeedhaya. lambarka 14 qofka sita hore ha u soo kaco. inan bay noqotay qofka sita lambarka 14. kusoo dhawow barnaamijka kobci garaadkaaga. magacaago saddexan adigoo mikrofoonkana afka u dhoweynaya. magacaygu waa mabruuka cali xasan. ya mabruuka cali xasan. mabruuka kusoo dhawow mar labaad barnaamijka kobci. waxaan ku weydiin doonaa 5 su-aalood, hal jeer dadweynaha ku caawin doona, 4 kalena adigay ku yaalaan. ma galnaa su-aashaada koobaad ee barnaamijka? insha allah waynu galnaa soo maha. diyaar baanad u tahay? waa tahay. su-aashaada koobaad ee barnaamijka habeenkani caawa ah aada nasiibka u yeelato in barnaamijka aada su-aalahaaga ambaba su-aashaadu ay noqoto ayaan geli doonaa. halkaad naga daawanaysaan waa telefishinka qaranka, halkaad naga dhegeysanaysaana waa raadiyo hargeysa codka jamhuuriyadda somalilan. shirkadda isgaarsiinta telesom ayaa barnaamijkani ka qayb qaadatay, lafdhabarka barnaamijkuna uu yahay. sidoo kale barnaamijka habeen walba saacaddu markay tahay 10:00 habeennimo ayaynu hawada ku kulannaa, idinkoo 30 marir hore aanu ugu talagalnay dadka telefoonada naga soo qaraacaya. waxaa ka oranaysa su-aashaada koobaad, gabaygu waxa uu ka dhisan yahay gabaygu waxa uu ku dhisan yahay meeriskiisu 2 xaraf raac oo kala ah. gabaygu waxa uu ku dhisan yahay meeriskiisu 2 xaraf raac oo kala ah. horays iyo hakad, hooris iyo hakad, b hoojis iyo hawraar, b hoojis iyo hooris. gabaygu waxa uu ku dhisan yahay meeriskiisu 2 xaraf raac oo kala ah. gabaygu habka u dhacayo ayaa lagaa doonaya. gabaygu waxa uu ku dhisan yahay meeriskiisu 2 xaraf raac oo kala ah. hooris iyo hakad, hoojis iyo hawraar, hoojis iyo hooris. dadweynuhuna waynoo harsan yahay. hooris, hoojis, hoojis, hawraar, hooris. inamaad gabiyin soo maaha. waxaan garan lahayn hadaynu gabiyi lahayn labadeynu. waa tahay kolley dadka gabiya amaba xeelada dheer ku leh way yaqaanaan. in badanoo gabaydaana waa filayaa inay stuudiyaha nagula sugan yihiin. intiina isku daydayda un weli aan soo shaac bixin bay la joogtaan filaya.
gabaygu waxa uu ku dhisan yahay laba meeriskiisa laba xaraf raac oo kale ah meeriska ayaa idinka baahanay mise qof baa la waa oo hooris iyo hakad ah labaynan baa gacanta taagay buu yidhi waa hooris iyo hakad mise qof baa le waa b oo hoojis iyo hawraara way ka aamuseen mise qof baa le waa c oo hoojis iyo hooris ah oo kuwa intii gabi jirtay iyo intii aqoonta u lahayd c ku raacayna ku qasbanay leenay mar haday gacanta wada taageen su'aasha jawaabtaasi sidaas ayay sax ku tahay su'aasha labaad ee ayaynu eegaynaa barnaamijka sax waan sii soconaa soo maha waa tahay su'aasha labaad ee barnaamijka habeenkani caawa aad nasiibka u yeelan doonto hooris iyo hoojis iyo kolley ka soo gudubnay baan filaynaa oo erayada gabaygu waxyaabaha uu ku noqday boqorka maansada ayay ka mid tahay waa inuu ka adeeg yahay inuu ka duwan yahay inuu cid gaara ay hibo u leedahay oo ay gabi karto laakiin maansa ahaan dadka ugu badan ee soomaalida iyagoo ah dad hawraarta iyo sidoo kaleba maansada iyo xikmadka aad ay hodan ugu yihiin ereyga hadhuubgaal waxa kale oo dhigiisa ah ereyga hadhuubgaal waxa kale oo dhigiisa ah e sibraar b gorof amba gorof c qarbad hadhuubgaal waxa kale oo dhigiisa ah sibraar gorof qarbad ina meel geel lagu lisaya haddaad tagtay gorofka hadhuubgaal su-aasha jawaabtaasi b ayaan ku eegi doonaa inay sax tahay iyo in kale labadaba sidaasi ayay sax ku tahay hambalyo ayaan ku leeyahay in badan hadhuubgaal u garatay inuu gorof uu yahay oo loo isticmaalo geela su-aasha saddexaad barnaamijka ayaynu gaadhnay maad sii wadanaysaa halkaasi ku joojinaa waa tahay barnaamijka halkaasi ayaynu ku soo gabagabayn doonaa inantaasi iyadu noqotay qofkii ugu dambeysay intaasina kaga kacday su-aalaha barnaamijka intaynu ku kulmi doono barnaamijkani barnaamijka xiga oo hadduu allaha awoodda le idmo ay tahay habeenka inugu soo aadanaya habeen dambe dhammaantiin waxaynu leenahay rabadaan kariim aniga iyo akhyaarta kale igala qayb qaadatay ee u howlan habeen kasta inay si toos ah idinku soo tabiyaan barnaamijkani howlwadeennada barnaamijka kobci garaadkaaga ee telefishinka qaranka iyo sidoo kale interradio hargeysa ku sugan dhammaantood iyo aniga oo barnaamijka idinla socodsiinayaba waxaa idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aqoon maal waxaad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyey ee dalka aqoon maal waxaad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyey ee dalka geeska caalamka iyo ciyaaraha sidoo kale waxaad kala socon kartaa barnaamijyo waxtar leh sida caafimaadka tiknolojiyadda dhacdooyin cajiiba maqaalo xiise leh qormooyin faa'iido leh siirada islaamka axaadiis isbedelada badeecadaha iyo ascaarta istijaabi waa barnaamij waxbarasho oo ay shirkadda telesom ugu tala gashay kobcinta akhriska iyo qoraalka bulshada layliye waa barnaamij waxbarasho oo loogu talagalay ardayda dugsiyada dhexe iyo sare waa barnaamij uu ardaygu ku tijaabin karaa aqoontiisa si aad u isticmaasho adeega aqoon maal waxaad moobilkaaga qaybta fariimaha ku qoraysaa hadba isticmaalka barnaamijka ama warka aad xiisaynayso adiga oo qoraya ereyga loo soo gaabiyey kadibna u dir 150
garabkaaga qabo kobci kobci garaadkaaga kobci garaadkaaga kobci 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 garaadkaaga kobci garaadkaaga kobci